السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال والسلام مثل دماتين ميل بودنيدا كجوجتان برنامجكينا هاga caafimaadka ka soo toddobaad la ka baxay barteena Facebook ee abdaxkiisaanay barnaamijkeena toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay mowduuc aad xasaasi u ah kaasoo ah waxa loo yaqaan masturbation Soomaalida ay u taqaana siigeysiga waa maxay siigeysiga waa maxay dhibaatooyinka caafimaad ee laga dhaxlay siigeysiga iyo sidee loo joojin karayaa siigada intaasoo yar waxa ugu jawaabi doonaa muuqaalkeenan ee daawasho wacan haddii aad hore noola joogi jirtay comment iyo like iyo share si dad badan u gaar haddii aad nagu cusub tahay soo follow garay haddii aan mawduuceena u gadagalna waa maxay siigeysiga ama waxa loo yaqaan masturbation siigeysiga ama masturbation waa in qofkii biyo iska keena asagoo oo ku falaaday xubintiisa taranka ah taasoo caadadaas oo aanan wanaagsaneyn dhaqan ahaan diin ahaan iyo weliba caafimaad ahaan waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo dhibaato kala kulmay arrinkaas welina ilaa hadda xal helila dhibkii kasoo gaaray ee siigeysashadii dhalinyarada caadadan waxaa u badan dhalinyarada isugu jirta dhalinyarada qaangaarka ilaa iyo dhalinyarada xilliga da'aha ku xiga ee 25 ilaa iyo 30 ee dhalinyaro isugu jirta gabdho iyo wiilalba haddaba waa maxay dhibaatooyinka caafimaad darro ee lagala kulmay siigeysashada ama waxa loo yaqaan masturbation waxa lagala kulmaa dhowr caafimaad darro ee keenaysa waxaana ka mid ah 10 qodob oo isleeyahay waa kuwa ugu muhiimsan ee keenta siigeysashada in kow daal iyo tabar darro joogto ah qofkii weli badanaa waxa lagu arkaa dadka saa'idka u joogteeya waxay saameynaysaa arrinkanayta in qofkii saa'id u daala maxaa yeelay xilliga uu sameynay caadadan xun qofkii wuxuu isticmaalayaa hormoon waxa la soo deynaya hormoono badan iyo dhicaano badan taa ayaana keenaysa qofkii inuu la kulmo daal iyo tabar darro joogto ah midda labaad qofkii inuu la kulmo dhabar xanuun joogto ah dhabar xanuun qaybta hoose ee dhabarka inay xanuunta taasoo ka saameyn karaysa murqaha iyo carjabda dhabarka welina mustaqbalkana saameyn ku yeelan karaysa galmadii dabiiciga ahayd arrinka saddexaad ee dhibaatada ay keenaysa waxaa ka mid ah in qofkii timihii yaraadaan ama timihii daataan maxaa yeelay siigeysiga joogtayn siigeysashada waxay saameyn ama qalqal ku abuuraysaa ee qalqalgelinaysaa hormoonada jirka weliba khaasatan hormoonada u qaabil saaran kobcinta iyo karintii timaha mar haddii ay yaraato hormoonadii yaraadaan ama la waayo waxaa dhacaysa in timihii si sahlan ama si dhib yar ay ku daataan misena si dhib yar ay u yaraadaan timihii qofkii badaar iyo wax jinni kala soo baxda oo muuqaalkiisa halaynaysa arrinka saddexaad ee lagala kulmayo siigeysashada waxaa ka mid ah kacsi la'aan hamiyarada iyo kacsi la'aanta waxaa keena dhowr siyaabood oo caafimaad darro ah ayaa keenaysa balse waxa ugu weyn ee keena ayaa ah siigeysashada joogteynta siigeysashada ayaa keenaysa in qofkii la kulma hamiyari iyo kacsi la'aan arrinka shanaad biibax degdeg ah waa arrinka dhalinyaro badan ay ka cabdaan weliba dhalinyarada guursatay horena u samayn jirtay arrinkan wuxuu saameyn ku yeeshaa inay qoysas badan ay noloshooda ku dumaan maxaa yeelay qofkii inuusan cishan weyn karaya biyihii xilliga galmada uu samaynay inuu qofka cishan kari waayaya biyihii ay dhaqso kaga imaanayaan arrinka lixaad in aragtida oo yaraata ama daciif noqota oo aragtida inay caad saaranta ma ahan caadkii la aqoon jiray ee loo yaqaana cataract ee ahaa in indhaha caad saarmaan badanaa lagu arka dadka da'da taa way ka duwan tahay arrinkan todoba xanuun nafsaani ah inuu qofkii macnaha uu si nafsaani ah hilmaam fara badan iyo inuu la kulmaa xifdin la'aan qofkii arrinkan ayaa dhaqaatiirta badanaa arrinkan daraasisa ayaa dhibaato weyn ku qaba in qofkii waxaana la sheegaa in si dhib ah lagu daaweeyo qofka hadduu marka la kulmo xifdin la'aanta iyo hilmaamka hadduu kula kulmaa siigeysashada joogteynta ahayd dhib ayay noqotaa in uu qofkii laga daaweeyo qodobkeena sideedaad waxaa waaye in qofkii uu la kulma kalsooni darra qofkii maxaa yeelay maadaama uusan waxba hataa xifdin karin sida hore usoo sheegay xifdiska ku yaraanay hilmaamka ku badanay qofka hadduu arday yahay waxaa dhacaysa markii ardayda qayrkiisa ay xifdinayaan asaga inuu xifdigii ku adkaada hayo hilmaamkiisa uu bato wuxuu isu haystaa inuu dhalinyarada kale ka liita inuu macnaha noloshiisa wuxuu u arkaa quus ayuu ka taagan yahay oo dhibaato aad u weyn ayaa kaasata arrinka sagaalaad waxaa waaye qoomamo joogto ah
in qofkii uu kala kulma qoomamo joogta markuu arrinkaas samaynayo qofku wuxuu isu haystaa qof faraxsan misana oo farxad ku jiro laakiin xaaladda ka dhacday 5 daqiiqo iyo 2 daqiiqo ka dhacday qofku wuxuu la kulmayaa arrin aad iyo aad dhibaato ugu ah oo qoomamo ah shalayti inuu qofka ka shalayday wuxuu u sameeyay uu hoob baan u galaya daqiiqadaha ka dhacday arrinka tobanaad ayaa waxa loo yaqaan semen leakage waxa waaye in qofkii biyaha cishan kara waaye maaha biyaha degdeg ah tan waxa waaye waxay ugu dabantaa semen leakage waxa waaye in qofkii biyaha cishan isagoo aanan wax daran aansan lahayn qofkii asagoo iska fadhiya mise asagoo iska taagan oonan xaalad dareenkiisa uusan kicin misana aanan galmo samaynaynin in qofkii biyaha iska wadataan wala xaaladaha ugu badan ee lagala kulmo arrinkaasi taran ayaa lagu kulmaa qofkii maadaama uu iska manay tobanka qodob waxaan isleeyahay waa tobanka qodob ee ugu muhiimsan ee qofku uu ka dhaxla karaya sigaysashada misana waxaan loo yaqaan masturbation waa caado aad iyo aad u xun in haddaba su'aasheen saddexaad ee ahayd sidee ayuu loo joojin karayaa caadadan waxaa lagu joojin karayaa ay dhaqaatiir iyo culumo iyo dadka badan isku raacsan yihiin dhaqaatiir psychologiga in qofkii uu macnaha duu awoodi karaya uu aroosto sida uu inoo sheegay rasuulkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu iska aroosto qofka haduu awoodi karaya midda labaad ugu joojin kara waxa waaye oo waliba arrin farxad mudan ah in aynu ku soo hagaagnay xilliga aan fidiga duuna xilli uu soo hayo bishii barakeysnayd ee Ramadaan inuu macnaha qofkii soomo sida uu rasuulkeena noo sheegay haduu macnaha qofkii shaaba badan yeesho inuu soomo sida shaabadiisa u yaraata marka waxa ugu faa'iideysan karaysa bisha Ramadaan in caadadii xumayd aad iska joojiso maxaa yeelay waxaa la yiraahdaa caadada qofku wuxuu ku joojin karayaa 21 maalin sida la isla qabo badana qofka haduu sameeyo waxa 21 maalin waxa dhacaysa qofka inuu wax ayaga hay iska goyn karay macnaha uu ka bixi karay marka waxa ilaahay ma hadii in bir Ramadaan lagu soo aadan tahay waxaan dhalinyarada videogan daawanaysa ee arrinkaas sameeya aan uu leeyahay ugu faa'iideysta bisha Ramadaan awgeed in aad caadadii xumayd aad ugu joogsato midda saddexaad ee asleeyahay qofku ku joojin karay waxa waaye maadaama aysan sahlaneen si caado loo joojiyo caadana loo sameeyo ay adag tahay qofkii inuu akhriyo buugga la yiraahdo Atomic Habits waa buug aad iyo aad u wanaagsan qofkii caadooyin badan u samaysan la caadooyin xun sida isii reebay caado wanaagsan u samaysan la ayuu ka baranayaa waana buug aad muhiim ah haddii aadan haysanin asagoo Soomaaliya aniga ayaa hayna shaashadan ay ku soo qoran halka kala soo xirin halka ay ka soo dirina asagoo bilaash ah aad ay u mahadsantihiin daawashadiina qaaliga ah waa intaas barnaamijkeeni waa inoo usbuuc dambe insha Allah